waxaa maanta magaalo madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo boqorka beelaha Nuux Marama Garab Sare ee Warsangeli Boqor Ibraahim Maxamed Xasan Gacma Yare oo toddobaadkii hore lagu caleemo saaray degmada Yubbe oo ka tirsan gobolka Sanaag. Munaasabadan oo ahayd mid ay soo agaasimeen qaar ka mid ah haweenka magaalada Ceerigaabo isla markaana ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan Boqor Ibraahim Maxamed Xasan oo boqorkii ugu horeeyay ee beesha Garab Sare yeeshaan. xafladan ballaaran oo lagu taageerayay boqorka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee haweenka magaalada Ceerigaabo waxayna sheegeen inay u hambalyo iyo bogaadin u dirayaan soona dhaweynayaan boqorka cusub ee beelaha Garab Sare Boqor Ibraahim Maxamed Xasan Gacma Yare oo toddobaadkii hore lagu caleemo saaray magaalada Yubbe. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan: waxaanu taageeraynaa u hambalyeynaa dhammaan haweenka iyagu waxaanu taageeraynaa u hambalyeynaa boqorka Ibraahim Maxamed Xasan oo lood laga doorto laga boqoray beesha Garab Sare. marka waxaanu leenahay boqorka waanu haleynay waanu ku garab taaganahay waanu kula shaqaynaynaa waanu ku soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay Allah raxmaanka ha ku guuleeyo ha ku garab galo han noqdo kii hogaamiye xalaal oo cadaalad oo daacadnimo ku shaqeeya Ilaahay ka dhigo dadkiisa ku Ilaahay u sakhiro kii Ilaahay diinta iyo dalka iyo dadka hogaamiye ka dhigo kii Allah raxmaanka ku guuleeyo la garab galo. anaguna waxaan ballan qaadaynaa ku la shaqayn lahayn annaga garbihiisa hambaliyo waxaan u hambalyeynaa boqorka Ibraahim Maxamed Xasan Xuseen oo lagu caleemo saaray magaalada degmada la yiraahdo Yubbe. waxaan uga hambalyeynaa gobolka Ceerigaabo hambaliyaanu leenahay inta yara soo dhameey gobolkaanu isaga nimi hambaliyadiisi taageeradiisa baan isugu nimi inta yara soo dhameey waxaan leenahay jiro joog hambaliyo waxaan uga hambalyeynaa boqor Maxamed Sara Xasan Xuseen oo ka mid ah haweenka ka soo qayb galay munaasabadan lagu taageerayo boqorka ayaa waxay halkaasi ka soo jeedisay buraanbur taageere iyo duco xambaarsan.
nasiibo xoolo lama iibin xigtaadina lagama guurine boqornimadu
dhinaca kale waxaa munaasabada lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo Soomaalidu ay caan ku tahay inta badan xafladaha ay ku soo bandhigaan waxayna ciyaarahaas u dhaceen sidan Gracias.